bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum duhur wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulbiye qodobada maanta aan warka duhur idinkugu haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha galmudug oo kulan albaabada u xiran la qaatay guddoonka aqalka sare iyo guddiga joogtada ee golahaasi cabasho iyo isbarbariyaac shaqo oo ka jirta xarunta laga bixiyo fiisooyinka turkiga ee gudaha magaalada tan muqdisho hay-adda culimmada soomaaliyeed oo si kulul uga hadashay xeerka jinsiga ee ay hakiyeen guddoonka golaha shacabka faahfaahin laga helaya qarax miino oo lagu dilay dad shacab ah kana dhacay magaalada xudur ee gobolka bakool wakiil wareedka raadiyo kulmiye ee hargeysa oo ku dhowaad 24 saac u xiran booliiska somalilan iyadoona maanta maxkamad la soo taagay wasiir ka tirsan somalilan iyo xubno la shaqeeya oo laga helay fayruska corona iyo dibadbaxyo rabshado wata oo lagu diidan yahay musharaxnimada madaxweynaha dalkaasi oo ka socda dalka Ivory Coast mar kale duhur wanaagsan waa talaado 15 bisha 9 ee September sanadka 2020 warkeena duhur waxaa si wada jira u soo jeedinaya Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim iyo anigoo ah Farxiyo Xuseen Cabdiqani ayaana soo saaray isagii oo faahfaahsan markan u diyaar garooba aan ku horeynay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa kulan albaabada u xiran yahay waxa uu la qaatay guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale guddiga joogtada ee golahaasi labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo la xiriira khilaafka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada shirka Muqdisho ka soconaya qodobo kale iyadoona xilligan ay khudbado jeedinayaan madaxdu Cumar Maxamed Soomane ayaan goordhow ka wareystay cabdiqani aad baad umahadsan tahay dabcan sidaa sheegtay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo isagii waqti uu hogaaminayay soo gaaray xarunta golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya waxaa soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi xubnaha guddiga joogtada ee gudoomiyaha uu hogaaminayo ayuu shir gaar ah kula yeeshay xafiiska gudoomiyaha golaha aqalka sare waxaana sidoo kale ka qayb galay labada ku xigeen ee guddoonka golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa khudbado dhinacyo badan taabanaysa waxay imid ka jeedinayaan xarunta ee golaha aqalka sare waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo sheegay in aqalka sare uu u taagan yahay ilaalinta dastuurka iyo hirgelinta shuruucda dalka u taalla isagoo soo hadal qaaday inuu ku faraxsan yahay in Axmed Cabdi Kaariye iyo wafdigiisa uu ku soo dhaweeyay xarunta golaha aqalka sare madaxweynaha Galmudug oo iminka khudbadiisa jeedinaya waxa uu ka eegayaa dhinacyo kala duwan oo ku aadan halka ay ka soo bilaabatay Galmudugta iminka dhisan waxa uu sheegay in tan iyo markii uu yimaaday xafiiska dowlad goboleedka Galmudug uu dib u heshiisiin u sameeyay beelaha ku nool ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxa uu sheegay in dib u heshiisiintaasi ay dhaxashay xukuumad tayo leh oo ay ka muuqdaan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug uu ku tilmaamay in ay taasi micno badan u sameysay arrimihii dib u heshiisiinta sidoo kale xaaladda iyo marxaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo ayuu madaxweynaha Galmudug ka jeedinaya khudbadiisana iminka ka socota xarunta golaha aqalka sare waxaana uu diiradda ku eegaya shirarkii ugu dambeeyay ee Muqdisho uu kula yeeshay madaxda dowlad goboleedyada xubnaha beesha caalamka iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrimaha doorashooyinka ayaa ka mid ah waxyaabaha uu soo hadal qaaday Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor hase yeeshee inkastoo aysan weli dhammaan khudbadda iminka uu ka jeedinayo haddana wuxuu eegi doonaa marxaladda iyo xilliga kala guurka ah ee dalka uu marayo faahfaahinno ayaa laga helayaa qarax miino oo lagu dilay dad shacab ah kana dhacay magaalada xudur ee gobolka bakool Axmed Saadiq Cabdiqaadir Yaro ayaa warkan inoo soo diray qaraxan waxa uu ka dhacay meel xudur u jirta 25 kiiloomitir uguna beegan dhanka waqooyi waana wadada xiriirisa magaalooyinka Ceelberde iyo Qarac Joome ee gobolka Bakool wararka naga soo gaaraya degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegaya qaraxan in uu haleelay moto 3 lugaley oo ay saarnaayeen dad shacab ah waliba gaar ahaan culimaadudiin kuwaas oo loogu yeetay in quraan akhris ayaa ka soo akhriyaan deegaanka Ceelberde ee gobolka Bakool mashaqaduna ay kula haleeshay meel 25 kiiloomitir u jirta degmada Xudur ee gobolka Bakool oo ah wada xiriirisa Qurac Joome iyo deegaanka Ceelberde waa degmada Ceelberde ee gobolka Bakool sida wararku ay sheegayaan laba ka mid ah waxay ahaayeen walaalo 8 ruux ayaa mootada saarneed balse dadka kale
goobta ayay ka agdhawaayeen oo geeriyooday. wadar ahaan dhimashada marka la isku soo dardaro guud ahaan waa 15 qof oo 8 ka mid ah ay ahaayeen culimo xilligaas u socotay quraan akhris. ciidanka ammaanka ayaa la sheegay inay ku baxeen goobta qaraxa uu ka dhacay. qaraxana waxaa sida la sheegay aasay dagaalamayaasha al-shabaab sababtoo ah inta badi waxaa wadadaas isticmaala ciidamada daraawiishta koonfur galbeed Soomaaliya ee ku sugan degmada Xudur, kuwaas oo isaga kala goosha degmooyinka Ceelberde, Qurac Joome iyo Xudur oo gacanta ay ku hayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta. gudoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa waxa uu ii sheegay in goordhow mashaqadaasi uu ka hadli doono isla markaasna warbaahinta faahfaahin dheeraad ah uu ka siin doono. culimadan ayaa waxaa maanta lagu aasayaa tuulada Biyajanay oo 15 kiiloomitir u jirta magaalada Xudur oo halkaasi markii horeba ay ka baxeen iyadoona aaska imika uu socdo. dadka deegaanka ayaa naxdin iyo argagax ku beertay iyadoo culimadan lagu casuumay guri ay doonayeen in quraan ay ka soo aqriyaan. dhanka kale ilaa hadda ma jirto wax sheegad ah oo ay sheegteen in qaraxaasi iyagu ay ka dambeeyeen dagaalamayaasha al-shabaab, balse wadadaasi waxa inta badi isticmaala ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta, waxaana maamulka Bakool ee koonfur galbeed Soomaaliya ay ku eedeeyeen in qaraxaasi ay ka dambeeyeen dagaalamayaasha al-shabaab. aad u mahadsan yahay wariyaha idaacadda kulmiye ee gobolka Baay. markan haddii aan magaalada Muqdisho dib ugu soo laabanno, cabasho ay dadka shacabka ah qabaan isbarbaryac shaqo iyo wax isdabamarin ayaa ka jirta xafiiska laga bixiyo fiisooyinka Turkiga ee gudaha magaalada tan Muqdisho. warbixin gaar ah waxaan uga diyaariyay wariyaheena Axmed Saciid Axmed. cabasho badan ayaa ka taagan habsami u socodka shaqada shirkadda qaabilsan xaraynta iyo qabashada codsiyada dadka doonaya fiisaha dalka Turkiga ee MZ Visa loo yaqaan, taas oo shaqadan haysay tan iyo 19 bishii Maarso ee sanadkii 2019. safaaradda dalka Turkiga ee Soomaaliya ayaa shirkaddan shaqada ku wareejisay si dadka Soomaaliyeed ay ugu fududaato helidda adeegyadan kadib markii ay aad u bateen dadka doonaya helidda fiisaha Turkida ee sida maalinlaha uu tagayay safaaradda. muddadii 2 sano ee la soo dhaafay ee shirkaddu waxa ay dadka ugu adeegaysay si ay ku qanacsan yihiin dadka loo adeegaya. hase ahaatee arrinta ayaa mar kaliya isbedeshay markii koox dhalinyaro ah oo ka shaqaynaya MZ Visa xarunteeda Hargeysa loo soo wareejiyay xarunta Muqdisho, ayna iska horkeen ay ka dhex bilaabeen mas'uuliyiinta shirkadda MZ Visa ee Turkida ah iyo madaxda shirkadda ee Soomaalida ah si ay ula wareegaan maamulka shirkadda MZ Visa oo ay arkayeen in dhaqaale badan ay ka samayn karaan. kooxdan oo la sheegay inuu gadaal ka riixayay xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo shakhsiyaad Turki ah ayaa meesha ka saaray dhalinyaradii reer Muqdisho oo muddadii 2 sano ee la soo dhaafay ka shaqaynayay shirkadda, waxaana xarunta ka shaqa bilaabay dhalinyaro ku cusub shaqada oo aan loo tababarin ka shaqaynta shirkad caynkan oo kala ah, iyada oo ay taasi sababtay gaabis ku yimid shaqadii ka socotay xarunta. cabashada dadku ay qabaan waxaa ka mid ah dad badan oo muddo ka badan bil ka hor xareeyay dalabkooda ku aadan fiisaha ilaa haddana aanan helin baasaboorkoodii iyo jawaabtii xaqa u lahaayeen ee diidmo ama helid fiisaha. waxaa kale oo yaraaday tiradii sida maalinlaha loogu qaabili jiray shirkadda. waxyaabaha kale ee hadda ku cusub shirkadda waxaa ka mid ah lacagta oo lagu qabanayo adeega EVC Plus oo aan markii hore lagu qaban jirin, balse uu qofku bixinayo $10 oo dheeraad ah, iyo qofka gudaha xafiisyada loogu adeegayo oo isna bixinaya lacag gaaraysa $40 oo aanay ku jirin lacagtii sharciga ahayd. qaar ka mid ah dadka reer Muqdisho oo kulmiye la hadlay waxa ay sheegeen inay arrintan ku dhib qabaan loona baahan yahay in dawladda Soomaaliya iyo safaaradda Turkiga ay wax ka qabtaan maadaama ay dhibaato cusub tahay. barnaamijka dhibaatada ka tagan waxa waaye dadkii fiisaha bixin jiray kartabaalaysan ee u fududeyn jiray howlaha caafimaadka iyo howlaha waxbarashada waxaa kasoo dhaxgalay dad dana gaar ee wata dadkaas oo doonayaan inay macnaha ay iyaga la wareegaan shaqadii. marka waa dareemi karta dad shaqa meel dadka ay wax ku yaqaanaan ay ku soo raadsan jireen haddii inta laga xiro way wareerayaan dadkii waxay meel waxay ka raadsadaan ma yaqaanaan. dadkan waxay isku dayayaan in ay helaan baahiyahoodii waxa siday u dabiri lahaayeen oo fiisihi ay ku heli lahaayeen. fiisihiina dad gaar ah waxay isku dayayaan in ay meesha ay la wareegaan
dawladda waxaan u baaqaya iyo Turkida iyo dawladda Turkiga waxaan u baaqaya Turkida fiisaha iyada iskale iyada bixi dawladda Soomaaliya iyada ka mas'uul dawladda Soomaaliya shacabka iyada ka mas'uula marka waxaan ilaa dadka gaarka doonaya inay dadkii fiisaha bixin jiray inay kala wareegaan doonayaan inay dadkii macnaha aysan waxba u qaban karin in ay tilaabo degdeg ah inay ka qaado dadkii ay u fududeyso fiisihii soo saaritaankiisii afayeenka dhaqanka beelaha Hawiye Cabdinuur Axmed Diiriyo oo isna kulmeen la hadlay ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed isha kaliya ee u furan ay tahay kaalmada Turkiga loona baahan yahay in aan la carqaladin kaalmadaas oo dadka muddo ka shaqeynayay shirkadda hawsha waday sida fiican u yaqaan shaqada in loo daayo hawshooda arrintan aad ka hadlaydo oo fiisooyinka wiilashii maaragta ka shaqeynayay kamariga fiisaha cabashadooda way soo gaartay cidda ay qusaydana waa la wadaagnay waxaana leenahay arrinkaas sida anagu noo soo gaaray iyo maaragta xogta aan helaynaba waxay u baahan tahay arrintaas indho dheer iyo maaragta si gooniya ayaan maaragta anagu u daba joognaa oo aan u fiirinaynaa maaragta cidda ay qusaydo na arrintaas waa la wadaagnaa cabashadeeda waxaana leenahay cabashadaas wayna soo gaartay dad kala duwan ay gaartay odayaasheenana wayna soo gaartay wallahi niyo dadka wax la soo darsay way tahay arrintaas aadaan uga xunnahay waxaana leenahay arrinkaas waa si degdeg ah loo xalliyo in qof la dulmiyo ama qof maaragta shaqo asagu uu ka shaqeynayay ama maaragta dadka bulshadan shaqo uu hayay in maaragta hadda si ay gaab gashana waa ka xunnahay maxaa yeelay dadkan shacabkan Soomaaliya sida la og yahay walaalaha Turkiga waa meesha kaliya isha ay ku hayaan oo haday caafimaad noqoto iyo haday waxbarasho noqoto iyo hadii ay noqoto dara kala duwanba aad iyo aad ayaa maaragta ay muhiim ugu tahay marka arrinkaas cidda ay qusaydo ma waxaan rajaynaynaa arrinkaas xal degdeg ah in laga gaaro xiriirka u dhaxeeya dalalka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa soo bilowday sanadkii 2011 markaas oo Turkigu u soo gurmaday Soomaaliya oo abaar daran ay ku dhufatay waxaana la xasuustaa in madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo waqtigaasi ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho oo xilligaasi dagaal ay ka socdeen gudaheeda waxaana tan iyo xilligaasi hagaagsanaa xiriirka labada wadan iyadoo Turkigu uu Muqdisho ka furay safaaradda ugu weyn iyo saldhigga ugu weyn ay ku leeyihiin geeska Afrika waxaana jira shakhsiyaad caynkan oo kala oo dhaawici kara xiriirka labada dal wakiil wareedka idaacadda kulmiye ee magaaladaasi Hargeysa Somaliland Ilyas Cabdi Cali ayaa tan iyo xalay u xiran booliiska Somaliland iyadoona wararkii ugu dambeeyay aan helayna ay sheegayaan in loo jaray muddo xabsi ku hayn 7 maalmood ah eedda hordhaca ah ee ay xogta sheegaysana waxa ay tahay in loo haysto warar uu ku daabacay bartiisa Facebookga Xasan Saleebaan Haarun oo Xasan Galayr oo ka mid ah wariyaasha Somaliland ka howlgala ayaan goordhow waxaan ka wareystay xariga Ilyas Cabdi Cali iyo wararkii u dambeeyay la xiriira Ilyas Cabdi Cali habeennimadii xalay ayay ciidamada booliiska Somaliland ku xireen magaalada Hargeysa gaar ahaan xarunta CID ee Hargeysa ilaa iyo haddana halkaas uu ku xiray saaka subaxnimadii waxa la geeyay maxkamadda gobolka Maroodijeex waxaana ay maxkamaddu u tartay 7 casho oo rumaana ama xabsi ku siixayna si baaritaankiisa loo dhamaystiro ilaa iyo hadda ma jirto يعني قضاء عد ولقصو إليه وأي محكمة غير كاتي لكن ورقة ورقة نكسو حجر إنه ورقة صحفية Somaliland صورتها وبدويه وما أنت محكمة تجوح شيء يعني إن قضاء ورقة الله يستا أيهين وحيابا وكقري فيسبوك يسا marka laga soo tago hordhacaasi ma jira war rasmi ah oo booliisku ay soo saareen ilaa iyo hadda ma jirto xukuumadda hadday tahay booliska hadday tahay cid kale hadday tahay cid xarig xukuumadda ka tirsan oo xariggiisa ka hadashay iyo sababta loo xidhay sidee marka wariyaasha Somaliland ka howlgalaya u arkaan xarigga xalay loo geystay ilaa haddana uu xiran yahay Ilyas Cabdi Cali wallahi guud ahaan wariyaasha Somaliland ku sugan way ka soo horjeedaan xariga saxafiyiinta oo runtii cid ka raali ma jirto waana ka xunahay xarigaasi loo geystay saaxiibkayo Ilyas Cabdi Cali waxaan ku baaqaynaa runtii in xorriyadiisa loo soo celiyo
oo loo maro hanaan sharciga qofka marka la xirayo oo maxkamadii ay soo xalaalayso ama ay waaran usoo jarto sidaas lagu qabto